السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لهنا قالقة وولاشين حمد علي محمد يوه أيان محمود يوسف ما شاء الله. باي أيان محمد يوسف أيام ما أنت مرتيا هلك عندنا جلسة عطانا واجنا لذا كلاء حمد حالي جنال فتح كمال إيكي كافي أوفيشال. المقال كان وحاول تلقلني إن وصدح الجنال بقى بسنة صورته أهوح عن كذا هذين وحيهين وعيقلين أنكو عيقلينينو bulshada Soomaaliyeed khaasatan hooyooyinka Soomaaliyeed sidoo kale kama marna gabdhaha yaryar ee hadda soo koraya sidoo kale kama marna wiilasha aabayaalka dhamaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxaan rajaynayaa inuu aad iyo aad waxtar idinkugu yeesho isla socod wanaagsan muuqaalka haafa kaga tagin soo dhameystir insha Allah waan rajaynayaa talooyin wanaagsan inaad ka faa'iidaan insha Allah abaayaa soo dhawow kusoo dhawow saddexdaas channel magacyadooda soo xusnay iyo asxaab waliba si qurux badan kusoo dhaweyn doonaan insha Allah oo halkaas ka soo dhaweyn doonaan. waa mahadsantahay Xamdi, shukran inta ay soo dhaweysay waa ku faraxsanahay maanta. aniga horta YouTube ma lihi bad waxaan jeclahay mar walba inaan dhalinyarada iyo dadka Soomaalida inaan wax wanaagsan gaarsiiyo maanta maybe soo bartay ama akhristay ama aniga yani opinion ila ma fahamtay sa maxaa fastiraba inaan la horta mar walba maxaa jeclay inaan dhalinyarada la hadlo wax gaarsiiyo. dhalinyaradii waa future-ka tomorrow, bariya laga rabaa inay wax noo qabtaan dalka. odayaashii way sii duqoobayaan ma fahamtay. so kwanza dhalinyaradena maxaa gaarsiin rabaa inay iscaawiyaan. secondly qofna inay iscaarin maxaa arkaysaa gabar xun ama wiil oo sisi ah qof horta kama fiicin ma fahamtay. dadka bini'aadanka dambi way galaan, khalad way galaan. so waxa jeclaan lahaa inaan dhaho dhalinyaradena iscaawiya. qof qaladkiisa hadaa aragtid qaladka qofka ku jajgareen abaayaan marka ka dhex galo macnaha gabar waxaad arkaysaa sisi kala ah ama wiil waxaad arkaysaa sisi kala ah qofna kama fiicnid. meesha abaaya ay leedahay ma ahan qofna kama fiicnid adiga, laakiin qofna kama fiicna ee adiga ayaa ishagaajin kara. abaayo xoogaha waa iska sujuud Soomaaliga ayada ku yaraada insha Allah. marka waa fahmi kartiin idinkana kulay ku soo abaayo. waa mahadsantahay. hadda waxaan rabaa inaan dhex galo maybe maxaa maqlay gabar oo Faaduma Buraanbur la dhaho oo Soomaalida kamid ah oo hooyana ah Soomaaliyeed 7 caruur hore looga qaatay. habeen dhaweydna sida anaga nagu maqaalada ah cunugii 8aad markii umushay laga qaatay. waxaan leenahay horta gabadhaas walaasheena waana gabar youtuberada waliba horta waxaan leenahay gabadhaas walaasheena abaa waa kula dareemeynaa xanuunkii hooyanimo aad dareentay. waxaan nahay hooyooyin Soomaaliyeed annaga waa sida aan u jecelnahay habeenkii markay seexanayaan waxay ku seexdeen caruurteena caafimaadkooda iyo waxa ku soo tooseen inaan ognahay ogaano ayaad adna u jeceshahay. dabcan waa dareemi karaa hooyo Soomaaliyeed oo maanta awlaadeedii laga qaatay oo gacan cadow ay kaga jiraan oysan awood u lahayn ilmaheedii maanta ay ku aragtay xitaa xanuunka ay dareemayso hurdo inay ka guurtay, cunto inaysan u dhadhamaynin, cabitaan inaysan u dhadhamaynin, nolosha ay ku nooshahay bay iska tahay nolol ma aragtay xaalkeeda ilaahay uu ogyahay. laakiin insha Allah waxaan rajaynayaa inaad noqotid qof ilaahay subxaanahu wa tacaala iimaankeeda sugay, diinteedana ku sugan, mar walbana Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu talagalay inay marayso og. haddii ilaahay uu qadarana ilaahay ay gacantiisa weyn tahay, aragtidiisa ballaaran tahay, cid walbana isku cabiidin kara gaalaas inuu kuu soo cabiidiyo, awlaadaadina ay kuu soo noqdaan sidii shalay aad u haysatay ay kuugu soo noqdaan maanta. ilaahan kaaga rajaynayna insha Allah. marka intaas laga soo tago abaayaanay waa aragtay bulshadii Soomaaliyeed waxaa ku batay burburka qoyska. sidoo kale waxaa ku batay waxaad arkaysaa gabar yar oo 18 jirto oo dhahayso rooba ahay waa la furay. waxaa ku batay gabdhihii qurbaha joogay inta badan in ilmahoodii laga qaato. horta dadka qurbaha jooga way dhiban yihiin oo ilmaha ayaga ay dhaleen ayaa macnaha ayaga meesha dhalina waa la dhalay. maanta annaga Afrikaan joognaa hadda waa soo baxnay maanta dalxiisa soo aadnay waa baashaalnay waa wareegnay jawi qurux badan aan qaadanay ilmayowgeena guriga uga soo taganay dad aan ku qarsoonahay oo waalid iyo walaalba ah uga soo taganay. waxaan aaminsanahay intii anaga naga heli lahayd inay ka helayaan balaayana aysan qabsanaynin insha Allah. ayaga kalsoonidaas ma qabaan ay maanta ilmahooda macnaha ay uga soo tagaan.
sidoo kale waxaa jiro dadkaas famille ay ka tageen oo Soomaaliyeed hooyooyin walaalo waalid adiga family ay ka dhasheen oo ka tageen oo sugaya jiro oo ka sugaya noloshooda ayaga ku xiran tahay so ani maanta waxa dhihi lahaa Soomaalideena horta inay isku xirnaan way fiicantahay horta dhinaca qoyska hadda ka hadlo badana mostly dadka markay isguursanayaan ma fiiriyaan qofkan wuxuu yahay diintiisa ma fiiriyaan mostly diinta dhammaan muslimiin aanahane alxamdulillah mostly dadka muslimiin waaye wayna ku dhaqmaan inta ku dhaqmina Ilaahay soo hanuuniyo so waxa dhihi lahaa gabaray marka guursanaysa qofkan iska fiiri muxuu yahay yuu yahay قبيل بس هفيرين أما لعق إنه كسر وكوته قف كان بني آدم لماذا وقبا بركة ماله مهمة الكوبات صار إن قف كان هذا وناجيس أبوته صار مهمة هذا الكوبات سيدو كله هذا هرتا بوركا سيسا بنامبو Soomaalida inta badan waxay u badan yihiin guurka degdega ah laba qof isbaranayso oo maxay ahaydey si fudud isku baranayso isla si fudud ay hadana guurkii ay ku soo afjarayaan waqti kooban gudaheeda la isku guursanaya marka taas laga soo tago horta guurkuna waa calaf kala tagitaankuna waa calaf laakiin muhiimadda waxa ah isfaham qofka aan nolosha la wadaagayso ma yahay qof noloshaada dabeecadda aad فهم كتان مركز أديك قلدن تهاي كسيحي كرو مركو أساق قلدين هاينا أتسيحي كرتيت قف أد نلاش إسلاتيان قادي كتان إسفهمي كتان تلوذاك تهين قوري كستا أو لسان أو قروح بدن لو تقول لسان تلوذاك يسمر إن تلوذاكو إن لسمر إن شيق وحاجر أني أن أد وحيران هاي أن تعل هاينا شيق أسمع إذا أفتبه والله وين maalinkii laba ama saddex ama hal hadana laba ka dhageysan mid waa ka dhageystaa Abu Dalha lahaa inta badan sheeqaas wallahi wax kale kama hadlo arrimaha qoysku ka hadlaa khayr Allah siiyo waa rajaynaa gabdho fara badan inay daawadeen oo nolosha sheeqaas sidoo uga hadlo familada Soomaaliyeed ama familada uu arkay nolosha asaga ay jecel yihiin inay dadku ku wada dhaqmaan tusaalooyinka iyo maxaadirooyinka uu ka dhigay waa rajaynaa gabdho fara badan oo Soomaaliyeed inay nolosha guryahooda ku saleyn doonaan asagana ajri xasanaad Ilaahay ha ka siiyo kullay ajirkeedu leeyahay marka inta laga soo tago abaayo waxa jirto gabar yar waxa arkaysa ninaysan aqoonin lagu daraayo aabihii gabadhaas dhalay wuxuu gabadhiisa ku qasbay inuu ninkan ku daro gabadhiisa wuxuu ku doorsanayaa markaas isaga wuxuu fiirinayaa xaaladda markaas waxa laga yaabaa familka xaaladiisa inay iska xooga xun tahay iska hooseyso wuxuu ku fikirayaa ninkan maanta ama Yurub ama America jooga maxay ahaydey noloshan ku jirto inuu wax ka bedeli karaa gabadhan ku qasab gabadha waxa laga yaabaa nin kale inay xiriir la lahayd kaas inay jecleeday ku kalsooneed kan laakiin waa lagu qasbaa marka problem fara badan wuxuu ka imaanayaa qof aad adiga ku kalsoon tahay oo muddo wada socoteen oo maanta dib iyo dheef ah isleeda qofkaas uu kula qaybsan karaa marka inta laga qasbo qof aadan aqoonin qasab lagu siiyo reerkaas sidoo ku dhisnaado way adagtahay soo arinta waxa ka dhihi lahaa waalidka fast inay arkaan waalidka ma ahan horta qofka relationship ka motive loo ma guursado yani waxa u baahan tahay ama lacag uu isiina ama kan uu isiina ama loo guursado qofkan maybe barika maalin caruura ka rabta mustaqbal fiican ka rabta wanaag iyo galgaceel qofka loo guursada ma fahamtay soo maanta maxaa rabaa waalidka inay gaarsiyo inay lacag fiirin inuu wadankan ninkan Mareykanka uu ku maqan yahay ama Sweden uu ku maqan yahay ama Europe so waxa la rabaa in la fiiriyo qofka ninka gabadheeda maanta lacala ani mara jirto aabeen inuu ii keenay anigoo wiil la socdo hadda isqabno alxamdulillah marka uu sheegay aaba qof la socda mu idin qofkana ku qasbaya uu ifahmay gabadheeda tay waxa rabtid kula jeclay waana kugu duceena qofka ii keen aan isfahamno isla sheekaysanayna lacag waxaas miigu xiran soo waalidka waxa ku jeclaan lahaa inay u suubiyaan gabdhahooda waxay rabaan hadii qof muslim ah ku keensatay oo diinta yaqaan oo Soomaali ah ha ka diibin meeqa gabdho oo halaabeen waa wareeg gurkii ka carareen xataa lama garanayo inta soo waarida yaqaan gabdhahooda xataa meel kuma sheegaan ilaa maybe guuray ku qasbeen waxay ku qasbeen gabadha maxay u doorbiday inay family ka cararto
saa gabadhaada waxa ku qasbin ay awoodin wiilkaaga sidoo kale taa ku qasbin qofka haduu dhaabo qofkaana haysta ama hooyo qofkaana haysta waana muslim alxamdulillah oo ogolaa qofka waxa ku xirin badana waayaan gurka waxa burburiyo laba qof ay isku keenay oo isgaraneen isku xataa laba hadal istuuranin dabeecadahooda kala aqoonin hadhowdi shida ka iimaanayso dhibaato iimaanayo ninkan maybe ninka weyn lagu daray oo xataa out ku geenaynin marmar xoogaa time kula soo qaadanaynin yani nolosha adeeg waxay tahay labada qof oo nolosha ay ka dhaxayso inay horta mar walba laba qof oo hal dhinac wada socdo ay noqdaan oo hal macnaha guush ay rajaynayaan ay hal tahay kalsoonina ay meesha taalo wiilkuna inuu gaxaaskiisa ku kalsoon yahay gabadhana inay xaajigeeda ku kalsoon tahay oo la sabab gareeyo oo mar walba garab la isa siiyo markii taas laga soo tago nolosha dhabta ah aniga sida aan ka aaminsanahay xamdi ahaan markaan ka hadlo nolosha dhabta ah waxaan ka aaminsanahay gabadha marwada ah ee la qabo ninka qabo inay ayada qalbigiisa mar walba ilaaliso sidoo kale ay hantidiisa la ilaaliso ee dhaqaalihiisa ay kala fikirto sidoo kale sharaftiisa ay ilaaliso magaciisa ay ilaaliso mar walba ay ku xisaabtanto ninkeeda inuu ahaado ninka ragga ugu horeeyo ugu sharafta badan ugu quruxda badan ugu magaca dheer ugu hantida badan ee la isku sheego oo la dhaho heblaay ninkeeda maasha allah hebel waay nolosha dhabta antaas ka aaminsanahay markii taas laga soo tago sidoo kale wiilka asagana waxaa laga rabaa gabadha xaaskiisa ah inta ayada ay u galaysa inuu u galo maalin xitaa waa in labada qof ay ayaga jawi soo qaataan time isla soo qaataan israacaan guriga laga baxo banaanka la aado meel jawi degan la tago doog iyo cagaar iyo meesha hadda sida anaga aan fadhinoo kaleeto la imaado waqti lagu wada qaato la farxo xitaa haddii wax ay jirjireen meeshaas wixii ku jira laisku wareysto ayadoo laisku faraxsan yahay guriga lagu noqdo kaale iska arag laisku marxabeynaayo maxayd garbaha la is haysto qofba qofka kaleeto maxabiyi kalgacal ku daraa horta relationshipka dhaqaale ma ahan qof hadaa la dhaho out aadaysin ama isdaysin maybe jeebkaaga ma qoyano wax ma haysatid wax yara isku darsateen xataa gurigiina time ku qaadan kartiin haddana nimanka waxaa rabaa inaa gaarsiin inaa arkaysaa gabadhii soo guursaday freedom guriga hooyadeed ku haysatay intay ku haysan lahayd ninkii wuu ilaalinayaa wuu bahdilayaa wuu xumeynayaa wuu caanayaa xaaskaaga si ay ugu quurtay wallaahi horta beema kuu sheegayay ani inta aan arkay horta ragga Soomaaliyeed oo dhan lama dhihi karo laakiin ragga qaar waxaa jiro xaaskiisa maanta aan nolosha guriga xitaa ma aragtay wax ku filan oo gurigiisa maanta asagoo dhaqaalaha macnaha qofka inuu dhaqaale haysto masti maaha laakiin asagoo dhaqaale haysto fiiriya nin asagoo dhaqaale haysto maanta oo hanti haysto awlaadiisa dayacayo waa rumay jiraan xaaskiisa dayacayo maxay ahaydee martida gabadhaas maanta u imaada aysan soori karin waa marwo la qabo oo meel degan marti hadday u imaado ma soori karto ma soo dhaweyn karto haddii ilaahay kuu roon yahay maanta dirac baatiya asaageedkay xitaan ma xiran karto sidoo kaleeto haddii maanta aroos iyo meel hala aado la dhaho gabadhii ma ka qayb geli karto oo maba haysato waxay uga qayb gasho haddii qaaraan lagu soo qorto qaaraanka kuma qayb qaadan karto ninkaas waa nin haddana hantiilo ah oo magac leh oo waxaysto intaasoo relationships arkay lacag kuma xirno wanaaga ninkaaga hadal wanaagsan hadduu ku siiyo uu dhaho maanta waxaan ama awoodi beri waxaana heli doonaa xabiibti intaasaaba kugu filanba ma fahamtay hadda waayaan gabdhaha aan ka dhexgalo ninka maanta asagoo hanti haysto oo ilaahay dhaqaale siiyay reerkiisa ka xasday oo ku xumeeyay xaaskiisa inuusan maanta garab istaagin oo uusan baahideeda bini aadan baahidiisa lama dhamaystiri karo lama kaafin karo laakiin at least inuu soo dhaweyn karo waxyaalaha xaaskiisa ee rabto gurigiisa quruxdiisa waxaas aan ka fikiraynin markuu kii waxaystay saas u dhaqmo haddana sidoo kale bilcagsi waxaa jira ninaa maanta waxba haysan laakiin jecel xaaskiisa inay nolosha ugu sarreysa gaarto gurigiisa uu noqdo guryaha ugu quruxda badan marka bini aadamku isku jiraan insha Allah asxaabta qaaliga ah ee nagu xiran waxaan rabaa yani maxaa ku darsanay horta intaas maxaa rabaa inaan ku darsado horta Soomaalideena inaan dad oo midow aan noqono oo isku dhagan
oo dad iscaanin aan noqonin qabiilna horta ameel naga dhiga qabiil lama fiiriyo Soomaali ma tahay bes walaasheeyatay walaalkeeyatay secondly maxaa rabaa inaan gaarsiiyo gabadheena Faadumo la dhaho laga qaatay caruurta la istaaga dadka Sweden joogan waxaa rabaa inaan ka codsado at least waraaqada qorta codsi geesta meesha child protection ka maxaa dhaadin mistake ay soo bisay second chance qof kasta bini'aadanka chance u baahan yahay Allah ana kunta soo dambi ka galayno u chance na siinaya iyada qalad ay gashay lagu haysto haddaan lagu haysaninna u muujiya inaysan walaashii qalad lahayn oo aysan dembi lahayn oo lagu qaldamay maantana adiga garabkeeda tihiin sida adinka ilmihiin ay idinkugu jiifaan sariiraha aa ogtihiin xaaladooda ayadana ula garab istaaga maybe buraan burkay waxaas wixii u aaday inay lacag u soo raadiso laga yaaba familka haddeertaan ay ka tagatoo kaleeto Afrika ka joogo ilmiheeda mustaqbal inay u samayso kale in ay maanta shaqo u aaday shaqadii ay aaday in loo soo dubamareeyay aa laga yaaba marka abaay adigan xanuunka waa kula dareemaynaa sorry waa kuleenahay ilaahay ha kuu soo qasbo ilaahayna ha kuu soo amiidiyo insha Allah waana kuu soo duceynaynaa anagoo badan meel aan wada fadhinayna waa kaaga soo wada duceynaynaa waana kuu duceynaa insha Allah si niyad iyo qalbiya ilaahay subxaanahu wa ta'aala garabkaaga ha galo waxaan rajaynaynaa كليبك ضمبه كحيجة أنا أيام كل مدون إنه نقدر مد مهدعلين الله أو مهدعلين له يأمد الصوماليات أباي أو المهدي هالشيء إن شاء الله إنه إلهي نوغرقه أباي أيام حاد الله إلى سودوية وقبر ولا شيء وقبر الصوماليات محي هذا الصومالي لماذا أنا قبضا صومالي لماذا أنا نضيق قبيل وحوم مشيغه أنا أعاون أزقرب سين نمر والب إن شاء الله haddii aad jeceshihiin ani abaay inaan markale idin soo celiyo oo markale tala bixin iyo arrimaha familka inaan ka soo wada hadalnana commentiga noogu soo qoro insha Allah maalna idin sameyn doona hadduu ilaahay idmo waxaan idinkaga sii tagaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh